wafdi ballaaran uu hogaaminay wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta iyo gaadiidka isla markaana ay ku weeliyaan maamulka guud ee hay'adda horumarinta wadooyinka iyo maareynta ku-xigeenka iyo wafdi kale oo aad u tiro badan ayaa lagu soo dhaweeyay degmada Garadag gobolka Sanaag wafdigan oo lagaga hortagay tuulada u koonaysa degmada Garadag isla markaana dhanka galbeed u xigta ay haatan maraysa wadada Tuur Cabdille ayaa loo soo galbiyay dhanka degmada Garadag isla markaana markii ay soo gaadheen wafdigan toga cadaadeed oo haatan wadadu ka socoto halkaas ay hadal ka soo jeediyeen horeyna waxa goobta ka hadlay maayirka degmada Garadag mudane Faarax عيسى يعاقل محمد علمي محمود انجنيرك ودسمها wadada Cerigaabo gacanta ku haya iyo maareeyo ku-xigeenka maareeyaha guud hadaladooduna waxa kamid ah sida tan halka adan nahay degmada Garadag dadkeedii adan bulshadeedii waa meeshii noogu adkayd talacadani waxa weeye wax la yiraahdo daarood gadle waa meesha ugu badan ee baabuurtu xilliga roobka noqdo xoolaha baabuurta sidaa ka noqon jirtay oo ku dhiman jirtay dadka ku dhintay ay la dhici jirtay oo ku dhiman jiray naq kasoo roob helo shil baa ka dhici jiray iyadoo dashilka wax ilaahay qorotay haddana waxa weeye sababteeda waxa la wada xumada meelihii noogu adkaabay ahayd ilaahay baa mahad leh waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siilaan wadadii calawaad noolaysay muddadiina xawaare dheer baad gelisay waliba markii hore xawaare ay ku soconaysay maanu filaynin inay waqtigan nagu soo gaarayso laakiin sida injineerku sheegay wadadii waxay ku socotay xawaare fara badan habeen iyo maalin way guureeyaan habeen iyo maalinna way shaqeeyaan si fiican bay u wadaan wasiir adiga iyo shaqaale aad diratayba ayay u jirtaa 10 kilomitir ay ka xigtaa xagga Saraar ama Burco Togdheer waa arkaysaan oo saa u sawiraysaan wadadani waxay martay buur naturally waxa laba buurood oo u dhaxeeya tog weyn oo la yiraahdo Cadaad Kulaal oo meel kale la maro aan lahayn waa dhul ballaaran oo biyuhu si ballaaran u maraan waxa dhici jirtay dadku in halkan aad ugu lumi jireen iyo gaadiidka oo muddaan la isku talaabi jiray waxaanu astaynay wasaaradda hawlaha guud ay astaysay in dariiqaasi laga fikiro safety-ga waayo waxa weeye meeshii lagu dhiman jiray baabuurta sacaatul wasiir waa aragtaa maanta waxaynu ku sugannahay Cadaad Kulaaleed oo 10 kilomitir dhinaca Burco meel ka xigta magaalada Garadag degmada Garadag waad aragtaa wadadii waanu soo banaynay lala yaabana la islaha ma waxa lagu jiri doonaa sanad iyo wax ka badan waxaanu ku soo banaynay muddo bil iyo xoogaa hadda ay cagafyadu ku jireen aad baan ugu mahad celinayaa injineerka iyo shaqaalihii iyo cagafyada ka shaqeynayay sida injineerku sheegay 4 baldowsar ayaa shaqada waday waxa weeye shaqada waanu laban laabnay waanu boqol laabnay imkana waa dadkii marka haday halkan ba jabinay wadadu waa iska dhama waayo saraarun bay noo hadhow saraar wala beddelay inkastoo aan isleeyahay iyada qudheeda hawl badan bay u yar baahan tahay haddana buurtaas ugu daran Cadaad Kulaaleed way wada naqaanaa dadka daadka qaadi jiray gawaarida tuulooyinka ku dhex yaalay daad baa qaaday waa meel aad u adag marka xilliga roobku da'ayo buurta marayno si dib u soo kulay ilaahay waxa rajaynaynay dadka deegaanada ugu farax badan way la tahay maanta waxa rajaynaynaa in wadadaas sidii buuran u bixinay ku taala kal shaqo qabiil tira dariiqeed annaga qabiil tira dariiqeed labaad iyadana waa qabiil tira insha Allah si wanaagsan waa loo mari doonaa dadaalkayga annaga shaqaalaha ugu dambeyntiina waxa hadalka soo afmeeray wasiirka wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta hadaladiisana waxa kamid ahaa sida tan hawshii cuslayd wadadii ballaarnayd ee 300 kilomitir ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaanteed inoo xil saaray inaynu maanta joogno halkii ugu adkayd oo ay ka farxalanay buurtii Cadaad Kulaal runtii halka boqolaha ka muuqda iyo togaga ka muuqda oo dhererkeedu 10 kilomitir u gaadhay halka labada buuro dhexdooda baabuurta ay mari jirtay oo xilliga roobka muddo dheer lagu xandimi jiray aad iyo raf ay ahayd oo dhibaato badnayd maanta aynu marayno buurtii oo laga sameeyay wado siman oo aad arkaysa tacab galay buurta la jafay waxaan uga mahad celinayaa halkan aniguna madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo marka aanu kulanaba yiraahdo halkay wadadii Cerigaabo maraysa runtii reer Sanaagna markaa waxa looga baahan yahay abaalka hayaan waa tacabkii madaxweynaha waa tacabkii xukuumadda waa tacabkii dawladda
inkastoo dee waajib qaran shacabka ku dhaqan degmada Garadag ayaa soo dhaweyntii ugu ballaadhnayd abiduu sameeyay waftigan hogaaminaya wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta isla markaana socod luga ku mariyay wadada halbowlo oo ah degmada Garadag iyagoo ku dhawaaqay ereeyay iyo halkudhigay ay ku soo dhaweynayeen waftigan hogaaminaya wasiirka waa Madar Seene muqbaayaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Garadag